Hello and welcome. Today we are learning English words for family members. Before we go into it, subscribe to my channel and like this video. Assalamu alaikum. Soo dhawaada. Maanta waxaan baran doonaa erayo Ingiriis ah oo ku saabsan qoyska. Inta aan bilaabin ka hor, channelka subscribe saar, muuqaalkana like garee. Mother, hooyo. This is my mother. This is my mother. Tan waa hooyade. Father, aabe. My father is a teacher. Aabehe waa macalin. Sister, walaashe. I love my sister. Waan jeclahay walaashe. Brother, walaalke. My brother is a doctor. Walaalke waa doctor. Son, wiilkayga. My son is 10 years. Wiilkayga waa 10 jir. Husband, ninkayga. He is my husband. Waa ninkayga. Wife, xaaskayga. My wife is very kind. Xaaskayga aad bay u naxariis badan tahay. Children, caruur. I have 9 children. Waxaan leeyahay 9 caruur ah. Aunt waxay noqon kartaa hooyada walaasheed ama aabaha walaashiis. Habaryar ama eedo. My aunt lives in Nairobi. Habaryartee waxay ku nooshahay Nairobi. Uncle wuxuu noqon karaa aabaha walaalkiis ama hooyada walaalkeed. Abti ama adeer. My uncle is a farmer. Adeerkee waa beeraley. Grandfather, awoowo. My grandfather died. Awowgee wuu dhintay. Grandmother, ayeeyo. My grandmother is very old. Ayeeyadee aad bay u duqowday. Waa channelkayga cusub aan ugu talagalay inaan dadka ku baro luqadda Ingiriiska. Fadlan adina igu dhiirigeli inaad like-ta, subscribe-ka iyo share-ka insha Allah. Wixii ra'yi aad qabtana igu reeb commentiga.